way ninkan odaygaasi بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي هو نور الدين إبراهيم كل واحد جعلها يون إلى وزير كوكوبيين سؤاله مدن وزير إن بدن سومال لو حل سوء العليي إن أنا أكف اللين عشورها كستمدها لقاضو من نوشي كرتا في جرس عد ومط أبوق نعضو وهرت هاجن إلا قاضو سحر لو قاضي عشوري بريه تصوته سؤال شلوات كلا أجعل هاي لا صب لا اسمه كوبي مثل حد مجلس وزير هرك أبوه ريي وزارة المالية وحس عضو شيء وحس عضو شيء إن أنت بنخر عشان كان ميزانية تبتر أيهين هو عن الله بحنين الوزير محمد حاشمها ولما وحس عضو شيء إن مدحتويد كفر جلسوا وخرشات الله بحنين لغطر أنت أتجوبتي وسير ملكو سفر جلي وسارد وخرشات الله بحنين نكلم على قاسع ومدحتويد مخقطر ما لكن خرشات كامل لو بهاي وخرشات الله بحنين بكوجنا مزوج متنا مرك توضم بس بوجن إنجليزي باكو قرن فرتيسو قدر كتدوار الدستور كستافلي وحدلية إن لغة كواد قرن كتحي صومالي محا إذا كل فيه ما دام اللغة إني إذا كم عيدانو إنجليزي مساعدة تتني قاعدة كرويدين. واي واد ما صنت هذا هو مركي حاجة دنبه لتجي مكا مرايدة حرن نصير. يعني وقت اللي يسأل يلا بدنا نهال سؤال وما شعلا نقصك هو. ساعات يصير معلومي جدا بيه وحنو أركيني أو يسيسيوين. وساعده بحين يسوق صابسن general service tax oo la saaray waliba isgaarsiinta waa sax oo wax xaq loo leeyahay laakiin se waxaan hadana dareemayna inay ahayd inuu muwaadinku helo service-kii u dhigmayay isaguna uu helo waxaynu ognahay in telefoonadu aan qofka sita telesom iyo qofka sita somtalaan wada hadli karay oo caqabado badan oo noocaas jiraan xagga communication marka maxaa idinka hortaagan inta muwaadinka markasta la weydiinayo taxkii la weydiinayo in dhinaca kalena la eego in isaguna uu helo wixii u dhigmayay ee service ahaa loogu bedelay mahsan way hadaba xagan saddex baan ka siin doonaa xagana saddex waa gabagabadii in ka ugu dambeeya mobilka sida ee halka بسم الله الرحمن الرحيم أدون كوبا يوسف وماتسي هاي إسر وماتسنت هاي ياسين وكماتسي بالستيشنك وزير مركا لو يبادو مدنات ميزانية ورتمركا لو تكون هاتسنتين هذا بجت كمان ميزانية دي سنة كسي توصل له أركي كرو وعدهم الآخر سنكرتو مدنات ميزانية أو قلبك لح دور صدح مركا نبتقلين لغاية ما دو قلبك لو اعترافك وزارة arrimaha dibadda waxaad sheegtay in loo kordhiyay boqolkiiba 4 halka اعتراف raadinta la kordhiyay boqolkiiba 56.7 waliba oo waa mudnaanta labaad marka qodobadan la eego maxaa kale arrimaha dibadda waad soo joogtay maxaa waqtiga kalifay in qarashka inta la kordhiyo iyadoo runtii aad sheegtay in qunsuliyada la furayo ama xafiis la furayo ama la dardargelinayo qunsuliyadaha dibadda aad buu mahadsan wasiirku buugan uu soo saaray maaliyadda oo ah 116 page 116 ka page hadda akhridaan dhammaan waxa ku qoran faahfaahinta miisaaniyadda oo dhan su'aasheedu markaa wasiir waxay tahay su'aal ku saabsan waxa la yiraahdo governance ama public institutions ku service-ka dadka u qabtaan siyaasadda miisaaniyaddan way ku jirtaa buugan way ku qorantay waxaa jira institutions fara badan oo public service qabta oo marka loo yimaado qofka muwaadinka ahi uu ka doonayo adeegga inay u qabtaan ka qaada lacag ogow miisaaniyaddana institution-kaasi budget bay ku leedahay waana mid ka mid a waxyaabaha kharibaya mabaadi'da governance-ka waayo waxa mar walba mabda'aha good governance-ka ama mabaadi'da governance-ka adeegga dadweynuhu helayaan inay bilaash ku helaan marka dalkeenna waxaa jira hay'ado badan ama public institutions badan oo service dadka u qabta oo marka qofku u yimaado service-kii oranaya lacag hala keeno tusaale ahaan sin aad ugu sii fahanno
matalan mas-uulku intuu warqadda soo saxuu odhanayaa xoghaynta ama inanka siimar inanka ama inantuna waxay ka qaadayaan waxay odhanayaan lacag ama stamp duties ama service charge ama legal money service wax ay doonaan ha u bixiyaan haddaad weydiiso kutaa lacagta waxaasay kugu jawaabaya su-aasheedu markaa waxay tahay wasaaradda maaliyadda awood intee leeg bay u leedahay inay lacagtaa qayla sharciga ahee muwaadinka laga qaadayo joojiso aad baad umahadsanta su-aasheeda koowaad wasiir waxa weeye 8 subaxnimo haddaad tegtid goobihii cashuuraha lagu bixinayey haddeer dhowtaan inoo sheegaysay lacagaha lagaa qaadayo waxaa ka mid a lacag ay overtime bixiyeen 8 subaxnimo ayaa lacag overtime la dhaha lagaaba qaadaya markaad weydiisid tan maxaa laga qaadayaa xaq mise ma laygu leeyahayna hawl baad kala mudanaysaan taasi waa mid wasiirka waxaan weydiinayaa wasiir waxaa tiri maalgelin bay sameeyeen shirkadaha SRM security risk management ebus iyo BOT oo maamuli jirtay BOT Berbera Oil Terminal waxaan ku weydiinayaa mudane wasiir dawladdu ma waxay qaadanaysay muraabaxa markaad leedahay maalgelin bay qaadanayeen oo waxay geliyeen shirkadahaasi deyn bay ku leeyihiin qaranka ah 10 milyan oo dollar deyntaasi ma caddahay waayo imika berbera waxaa ka socda haamo shidaal oo ay leedahay shirkad private Dahabshiil Group waxaa laga yaabaa haamaha shidaalka ay private-ka inaanay ku bixin 10 milyan ee aad leedahay qaranka waxaa ku leh shirkado madaxweynuhu ka soo wareejiyey maamulkii ay maamulayeen hay'ado dawliya mudane wasiir maxaa idinka lilaahiya mas-uuliyad baa haysaan xoolahan aad haysaan waxaa leh islaanta tamaandhada eebinaysa ayaa xaq ku leh idinkoo ka run sheegaya wax buuran aanay shirkadahaasi ka qaban haddaan tusaale kusoo qaato project security-ga madaarka waxaa bixiyey dowladda ingiriiska waxay soo maraysay shirkad la yidhaahdo Adam Smith tababarka shaqaalaha isla dowladda ingiriiska lacagtii ay nagu caawinayso wax cadde oo aan qarsoonayn berbera terminal laboratory terminalka laga dhisay waxay ku jirtay xukuumaddii aad adigu ka tirsanayd ee mudane madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Aadan uu hogaaminayay xaflad baa loo qabtay habeenimo dadkii ka qayb galay baan ahaa budgetka lagu dhisay laboratorygaas wuxuu ku jiray budgetkii 2015 haddii dib loogu noqdo la baarana waa la helayaa marka anoo soo gaabinaya dee maxaa idinka lilaahiya baanu leenahay bismillahi raxmaan raxiim waxaan doonay ku yaran noqdo su-aashii ahayd uu yaasiinoo ka jawaabay ee ahayd shirkan caawa isugu nimi muxuu ka bedelayaa miisaaniyadda soo socota amba tanba horta kolley shirkeena waxaa ka soo bixi doona dee qoraal iyadoo lasoo warinayo talooyinkii faraha badnaa ee lasoo jeediyey wixii talooyine aanu markaa u aragno inay yihiin kuwa ku habboon oo waxayna taraya waanu dhiga furanay waa qaadanayna haddii aan markaan aan u gudbo su-aalihii la weydiiyey ee ahayd maxaa inaga hortaagan inland revenue-ga inland revenue-ga cashuurtiisu waxay ka timaadaa sida caadiga ah waa corporation tax waa income tax rental tax ba ka soo qaad waxa waa sales taxka waa payroll taxka payroll taxka waxaa bixiya shaqeeyaha corporation taxka ma macaashka waxaa bixiya loo shaqeeyaha innaka midna inooma diiwaan gashana caalamka inta kale dee u diiwaan gashan yihin haddaan bilaabayno haddaan ku tiro jirna inaan diiwaan gelino mar haddaan kuu diiwaan gashanayn dee dadkaad wax ku leedayba garanba maysid dabcan resistance wuu iska jiraa khaasan xagga macaashku waa cashuurta ku waajibtay wixii ay meheraddu macaashtay marka inta badan waxaa la sameeyaa caalamka oo dee kambaniyaalo badan kambanigaa sameeya xisaab xidh la audit gareeyo dabeedna halkaasay ku caddaya wuxuu macaashay kambanigu dabeedna waxa uu macaashay baa laga cashuuraa
innaka kambaniyadeennu inkastay xisaab ay wada leeyihiin haddana xisaab xidh ma sameeyaan. dabeedna meheradii marka loo tago amba kambaniga marka loo tago wuxuun bay imanaysaa un la gorgortamoon mee intaasaa kugu waajibtay iguma waajibin intaasay igu waajibtay. marka taasuna waxa weeye waa carqalad. xisaab xidh la-aanta meheradaheenu waa waxyaabaha runtii carqaladda ku ah inland revenue inaynu qaadno. sidoo kale sales tagaska xitaa Ethiopia inoo dhow adiga arkay meherad walba mashiin baa yaala. mashiinkaasaa kuu sheegaya wixii la iibiyey iyo wixii VAT lagu qabtay amba sales lagu qabtay oo inagu ma lihi. marka xagga qalabka laftigiisa ayaan waqtigan xaadirka inoo saamaxayn. haddaad tiraahdo Mansuur ii qabo amba ii qabo maxaa ugu bixiya hodheelkan igu matalan waanu aaminaa waxay soo gudbiyeen waanu aaminaa waayo ma jiro mashiin xisaabiyey cashuurtii ay qaadeen. marka carqaladahaasaa ugu jira. kharashaad aan loo baahnayn horta kharash aan loo baahnayn ma jiro, laakiin mid baa jira meel looga sii baahi badan yahay. kadib waa loo wada baahi badan yahay, halkaasaa looga sii baahan yahay. halka ugu baahida badan leh hal la xoojo waa caqli weeye maogti. anuu intaan joogay weli madaxtooyada igumay khasbin inaan bixiyo kharash aan miisaaniyadda ku walan oo aan sharci ahayn. buugga maxaa af ingiriisi loogu qoray waa sax weeye waa af soomaali ku qoro waa laba fariis soo ma alright. horta waxaan ogahay citizens budgetkan wuxuu ku qoray af soomaali, af ingiriisina uu ku qoran yahay. marka horta af ingiriisiga waxay nagu kalifayaa miisaaniyaddu maaha for the benefit of the Somali people only, for Somalilanders, but for the benefit of other partners as well. in laga faa'iidaysto dadkan ay ka faa'iidaystaan. imika sharaf badan bay nooti aad baa laynoogu ammaanaa website-ka xogta laga helo maarta. arrin ku saabsan GST-ga waa runtaa beryahanba waanu xayeysiinaynay. waxaanu kusoo rognay markii hore korontada, iminkana maxaa lahday isgaarsiinta telecommunicationka. yacni caalamkao dhan waa cashuur ka jirta weeye. sharcigeenuna uu inagu waajibinayo, laakiin iminkun baanu hadda bilowno. mashkiladda interconnectionka ka taagan waa is a big problem. waxaan u malinayaa dunida ma jiro waddan aanay wada hadlin shirkadihiisa telefonku innanka mooyaane. xamar xitaa ma hubo amna ku ashurin wada hadlaan iyo kale. laakiin waa arrin aynu u baahanay runtii inaan wax ka qabanno. waa inay kuu suurtagal tahay kaa doonto telefonkaa doontaba sidoo inaad la hadli karto dadka sita madaxyada telefoonada shirkadaha kale. ka waa arrin runtii inoo yaalla guud ahaan dee dowladdana gaar ahaan u yaalla. arrinkaa waxaa gacanta ku haya wasaaradda isgaarsiinta ayaa gacanta ku haysa. laakiin benefitkii hal la arko cashuurtan la qaadaya waa sax weeye. lacagta miisaaniyadda aan dadka ka soo ururno dadka iska leh anu ma lihin. anu waxna custodian ammaanahaye. marka in lagu soo celiyo dadka lacagtii laga qaado oo loogu soo celiyo in the form of service, adeeg in loogu soo celiyo waa sax weeye. laakiin sidaan sheegay maadaama weelkeenu uu yaryahan waxaynu haysanaa yarnahay ay yar yihiin, intaa yar dee adeeg waynu ku samaynaa oo ma adeeg leyn. hadday noqoto cusbitaal, hadday noqoto maxaa dhahdaa iskuulka, hadday noqoto security-ga, hadday noqoto maxkamadaha, hay-adaheena maxaa dhahdaa legislative-ka ee baarlamanka oo kale, dee giddi waxaasaynu ku daboolnaa. miisaaniyadda aanu aadka ugu kordhinay ictiraaf doonka. aniga shaksiyan viewgayga waxa weeye amba ra'yiga waxa weeye ma maalgashano ictiraaf intaynu maalgashan lahay. ictiraafku waa waxyaabaha inoogu muhiimsan. ictiraaf la-aantu dhibaato weyn bay nagu haysaa. waxaynu u baahannahay ictiraaf baynu u baahannahay, laakiin waa qaali. jabnaan ku heli maysid. waa inaad maal gashato. waan kordhinay laakiin kuma filla. anu waxaan qabaa personal inuu baahanay sanadkii ilaa 10 milyan oo dollar in meel u dhigno. waa iib ictiraaf. waa in dad qanciso, waa in dadka hawlgeliso. kharash baa loo baahan yahay. waan iska fadhiisanaya waxma odhanay maxay dunida ictiraafi weyday ma yamshi. xisaab ku ictiraafi mayso. waa in lagu maqlo, waa in lagu arko,
waa inaad meel walba joogto, waa inaad dad adeegsato, waana very expensive. Imika consultancies arrimahaas oo kale kaa caawinaya waxa weeye waa 30,000 40,000 50,000 bishii keliya, cheap maaha. Marka runtii waynu u baahannahay, waaba yartahay baan qabaa anigu. way jiraan xagga lacagta laga qaado shicibka, way jiraan hay-ado laga qaado lacag, ka qaada lacag shicibka. wasaaradda maaliyadda ka mid ah arrinkii maxaa dhahdaa overtime-ka dishay, overtime-ka laga hadlayay waa uu jiraa, sharci maaha. siyaasadda miisaaniyadda sanadkii waxaa noogu jirta inaan inaan sharci ahayn dadka laga qaadin. anagu wasaarad ahaan waa joojinayna overtime-ka, overtime ka qaadi mayna dadka. marka ya walaa overtime dee xilli baa la shaqeeyaa, intii overtime-ka shaqeysa matalan kastamyadoo kale 24 hours waa laga shaqeeyaa. dadkaas dee waxay leeyihiin hab kaloo loo abaalmariyo, laakiin subaxii baan qaadaya overtime, taas sax maaha. marka taas marka taa waa joojinayna. arrinka ku saabsan deymaha, qiimeynta hantidii aynu profitize garaynay laakiin dib u qaramaynay. horta haamaha iyo shirkadahan kaleba guddi baa loo saaro soo qiimeysay, waa la qiimeeyey. invoiceadii haddii waxba lagu soo iibiyey amba mataa contractska lagu bixiyey, wixii baa lasoo ururiyey, maaha wax la iska qaatay, maaha wax la soo taabtay weeye. dabcan dee wixii ganacsadu ay gashadeen, wixii la siiyey waa in loo compensate kara, waa in loo celiyo, ila la boobi maaye. marka habka loo bixinayo ha loo mariyo habka dee channelka saxa ha la mariyo, waa sax. laakiin dadkanu dee waa loo qiimeeyey, way leeyihin, waa lacagtoodii wey. marka wax dheeraada dee siin mayno. horta intaasay ku yakaayeen su-aalihii la weydiiyey. aad iyo aad ba umahadsantihiin. asalaamu calaykum. marka laga hadlayo xagga cashuurta, ururinta cashuurta, inta badan waxaanu aaminsanahay qoladeeda gobolladu distributionka hadhow lagu celiyo gobollada, waxaa lagu saleeyaa dakhliga ay laga soo ururiyey gobollada. waayo service badan ma helna markaan joogno, for example gobolka togdheer. marka bilmetel cashuurtan bayrolka marka laga hadlayo wasaaradda waxbarashadoo kale waxaa lagaga jaraa Hargeysa. marka laga hadlayo xagga shirkadaha, for example imika tan communicationka la soo rogay iyo kuwii kasii horeeyeyba waxaa laga jaraa headquarterka. that means dakhligaa laga jaray waxaa loo xisaabiyaa in for example Hargeysa uu yahay dakhli ay soo xareysay. sababta income-ka markaa ama revenue ka soo xarunaya togdheer loo leeyahay uu yar yahay, waxaanu aaminsanahay lacagtii anigoo taxpayer aan ku bixinayay Burco in loo xisaabiyey gobol kale. that means hadhow service-kii aan heli lahaa markaan joogo gobolkaygii, waxaan aaminsanahay in xuquuqayga maqan tahay anoon dee ka xumayn waxay helayso caasimadda iyo gobollada kaleba, in wixii aan xaq u lahaa marka la distribute garaynayo ay cid kale helayso. ama daa ceebba ku tahay gobolkaygii iyadoo aan hagranin inaan bixiyo, in haddana la yidhaahdo meel hoose kaga jira maxay tahay revenue collectionkii. marka wasiir adoo ku mahadsan, miyaanay xaq ahayn in gobol walba for example wasaaradda waxbarashada heer gobol, hay-adaha heer gobol, shirkadaha marka laga hadlayo in shirkad walba heer gobol wixii dee taxpayerska gobolkaa jooga ay bixiyeen bartiisa lagaga jiro, si aan u arko waxa gobolkaygii kasoo xaroodo aan u appreciate gareeyo in dad badan oo deegaankaygii jooga ay bixinayaan dakhli wacan. kuu qorshaysan tahay inaad arrinkaas daadejiso oo aan headquarterka keliya lagu jirino gobolladii la daadejiyo. aad baad u mahadsantahay. su-aashii ugu dambeysay linkan xagga ugu dambeysa haddaan eegno, waxaan doonayaa anigu horta injineer baan ahay, weliba arrimaha biyahana waxoogaa khibrad wanaagsan baan u leeyahay. marka halkan buugan markaan akhriyey, inkastoo arrimaha dhaqaalaha lagaga wanaagsanyey, waxaan arkayaa arrimaha environmentka oo biyuhu ay ugu muhiimsan yihiin, in qarashka lagu talagalay ama miisaaniyadda waxaa ugu jira uu aada u kooban yahay. de wasiir waxa weeye hadalkaaguna waan kugu raacsanayo in arrimuhu se u kala horeeyaan
mudnaanta loo kala siiyaa waa muhiim ammaanku waa number one aniga agteeda waxa ugu muhiimsana kusoo xiga waxa weeye nolosha ibni aadamka oo ugu horeyso biyuhu qarashka halkan ugu jiraa aada buu u kooban yahay haddii bejka aad eegtaan buugga ku qoran qaabka loo sii qorsheeyeyna wuu sii liitaa baan isleeyahay oo 8.2 milyan ka ugu jira sida loo sii qorsheeyey waxa uu ku cad inta badan arrimaha dhaamamka mba muxuu ahaaye biyo xidheennada waxaan ognahay adduunyada water scarcity ka jira iyo baahi biyoodka jira tusaale ahaan waddamadan Asia oo biyaha rainfallka ugu badan helaa haddana waxay inta badan xoogga saaraan inay surface waterka biyaha la yidhaahdo ay ka faa'iidaystaan si ay u safegareeyaan biyihii underground waterka marka 8.2 milyan waxaan isleeyahay arrimuhu saanay nooga kala daadaadan dhaamamkan loo qorsheeyey wax badan kama tari doonaan biilaanta Somaliland ka jirta waana wax ku xidhan rainfallka aynu helno marka haddii waan soo koobiya marka haddii biyo la waayo macnihii dhaamkaasi shaqayn maayo wasiir waxaan recommend gareyn lahaa 8.2 milyan khibradda aan biyaha ka haysto waxay ku filantay hal system oo reliable ah oo underground biyaha laga soo saaro oo tusaale ahaan sool oo kale lagu waraabiyo marka biyahaasi siisa kor dhan bay soconayaan waa biyo dhulka laga soo saarayo oo mar walbana soconaya halka kuwan dhaamamku ay ku xidhnaanayaan biyaha rainfallka yimaada waa mahadsan su-aasheedu waa xildhibaankii wasiirkaba magacaygu waa Cadnaan Axmed Cali wasiirka waxaan weydiinayaa xildhibaanka xisbiyadu waa 3 xisbi baan leenahay miisaaniyad bay lahayd miisaaniyadoodii waa la dhimay sanadkan xildhibaankii wasiirka waxaan weydiinayaa ma waxay caddaynaysaa saynta xisbiyada xukuumadda inay sahayaan oo madaxweynaha iyo xukuumadda wasiirku ka tirsan xisbadu inay sahayaan iyo xildhibaanka iyo xisbiyaduna inay sahayaan oo ah xildhibaanadu inay ka baqanayaan xisbiyadan mucaaradku oo kon meel kasta maalin kasta yiraahdo xildhibaanadu waa muddo dhaaf ma taasaa keenaysa xildhibaan ama wasiir inaad dhintaan miisaaniyaddii xisbiyada qaranku lahaayeen aniga su-aasheedu waxay daaran tahay waxaad ogtihiin kastamada arrinta kastamada waxaad ogtihiin kastamadu inay kala xoog badan yihiin aadna ay u kala durkeen masalan marka laga hadlayo kastamka kala baydh ama marka laga hadlayo kastamka berbera sidoo kale waxaan ognahay kastamada deegaanada kastamada ku yaalaan in percentage loo gooyo oo maaragtay dowladaha hoose iyo dadkii deegaanka ay ku noqoto saa daraaddeed wasiir waxaan odhan lahaa waxaan ku weydiin lahaa maxaa idinka qorshaysan kastamada kale ee wadanka ku yaala gaar ahaan kuwa xuduudaha ku yaala in la xoojiyo si masalan dadka deegaankaasina ay ga faa'iidaan oo dee service loo gaarsiiyo dowladaha hoose ku shaqeeyaan bismillaahi raxmaani raxiim aniga su-aasheeda waxay ku socotaa qolaygan cashuuraha beriga wasiirka in badan baa su-aal la weydiinay waa ka yarduway anugi waxaynu ogsoonnay cashuurta reer tagaska leedaha in 6 bilood mar la qaado marar badanna dib u dhacda adigoo gaariga iska wata ayuun baa lagu istaajinayaa wuxuu qoranayaa liisankii keen markaad u dhiibtaa buga gaariga weliba adoon u dhiibahayn ninkii wasaaradda maaliyadda lagu istaajinayo askari ku istaajinayo maruu kaa qaado kuma sheegi ka odhan maayo waa la soo saaray reer tagaska cusbaa u yimi intuu kaala cararo ayuu xafiiska geynaya mid kale la wajirtaayo midka horan loo deyn way la socdaan haddii gaariga aan ka soo kaxaysa matalan waxaan ka soo kaxaysa ogan lafti wasiirka ogan laftigiisa gaariga ka soo kaxaysta way istaajina horanaya marka liisakii gaariga u dhiibo waa horaya warqadii kala wareejida keen gaarigiina anigu ma lihi taasi markaa miyaanay sharci darraa haddaa soo samaysto matalan haddii aan ku bilaabo arrinka su-aashii ahayd baabuurtan faraha badan iyo shidaalkan faraha badan aynu isticmaalno miyaynu u baahannahay miyaynan kaydin karin horta baabuurkana waynu u baahannahay baabuurkuna shidaalaan ma socon karo shaqaynu uga baahannahay laakiin aan tashiilo waa sax aan tashiilo oo wixii kharashan loo baahnay inaynu iska yarayno waa sax weeye inaynu isku baraarujino taas waa sax weeye waa la samaynayna arrinkii ku saabsanaa in gobollada loogu qaybiyo miisaaniyadda iyadoo lagu salaynayo inta cashuur ka soo baxday sidaa maaha
miisaaniyaddeenu ma gobolaysna way wasaaradaysan tahay. wasaaradda tacliinta waxay leedahay miisaaniyad dabeedna iyada gobolladoo dhan u qaybisa, uma eegto gobolka maxaa cashuur laga qaaday. marka waxa la siiyo burco togdheer ama maree togdheer baan maree burca looma eego burca maxaa rikoorkeedu uu odhanaya cashuurta, taasaa looma eego, baahi unbaa loo eegaa. arrinka biyaha waa run, biyuhu waa nolosha wey. weliba biyalaaninama hayse waxayna haystaa maamul xumo biyo ayna haysa runtii. sanadkan waxaanu miisaaniyadda biyaha aanu ku kordhinay 4%. waxaa ku jira 8 baa ku jira daam, 2 xafiira iyo 3 saandaam iyo 3 xirkaan haddaan xasuusto ayaa ku jira sanadkan. marka biyuhu way noo priority wey. miisaaniyadda amba kaalmadii axsaabta ee la yareeyey, horta waxaa yareeyey baarlamanka. baarlamanku dee xaq buu leeyahay constitution ahaan. iyagu waxay dhahdeen wixii kaalmadii ay qaadan jireen axsaabtu ha ka doonato lacagta xubnahooda oo lacagtaa ha la siiyo cusbitaallada. iyagu say u riisan gareeyeen, si kastaba ha u riisan gareeyaan. baarlamanku dee wuu iska anagu haddaan nahay, anagu executive-kii baanu wixii baarlamanku baaskeli maanu fulinaawin. waana runtii loo baahan yahay, labada waa loo baahan yahay. horta inaynu axsaabteena maal gelino waa loo baahan yahay runtii, oo dee dimuqraadiyadeenu adkaan mayso haddaan axsaabteenu aanay adkayn. axsaabteenu imika inta badan waa magacyo, hebel iyo hebel weeye. axsaab depth le maaha runtii. weliba wax ka maqan saaxada dhallinyarada ka maqan. odayaalba dee idin taliyoodi matala haddaa dhalinyaro waxaa laga hadlayana waa mustaqbalkiini weeye. anaga dee carruurteeda la aleegti, mustaqbalkiini baa laga hadlaa all the time. cid aan u wehelahayn baa ka hadasha every time. marka horta waxaa loo baahan inaa runtii involve, inaa engage noqotaan, inaa active noqotaan baa loo baahan yahay. waxaa kaloo loo baahan yahay in dee axsaabtu ay ku tiirsanaato. waa sax weeye sida logica maxaa dhahdaa baarlamanka xisbigu waa inuu xubna lahaado. haddii xisbiga aanay ku khasbaynin inuu xubna doonto iyo contribution xubna ka doonto oo lacag ku filan isagaan xubna doonan la siiyo, marka incentive ma jiraayo inuu xisbigu xubna doonto. tan road taxka waa laga hadlay. xuduudaha kasamada xuduudaha ku yaala ayuu ka hadlay. sorry ka kasamyada waxaa jira lacag I think 6.5% Soomaa 6.5% oo pool lagu shubo oo dabna wasaaradda arrimaha guduhu ay u qaybiso deegaamada. wixii faahfaahin dheeraad wax ku dari doonayeen saaxiibada ku dari doona. tan odhanaysa maxaa budgetka loogu dari waayey lacagta variationka la yidhahdo amba 10% way ku jirtaa oo lagu daraa. tan maaragtay electionka wadana dhowr jeer laga hadlay. waa sax, sanadkan kii na soo dhaafay iyo kii horeba miisaaniyadda waxaa ku jirta lacag la yidhahdo electionka. electionka waxay nagaga baxa qiyaastii 15 milyan sida caadiga ah, ilaa 15 milyan baa naga baxa. formuladii la isticmaali jiray berigi hore waxay ahayd inay dowladduna ay contribute garayso 25%, international communityguna 75%. laakiin runtii sida saxii waxa weeye haddaynu awoodi karro inaynu ku doorashadeena iska bixino inaan cid marti uga ahaanin, sida sax ah. marka maadaama aynu doorasho kolleyba gelayno, way fiican tahay inaynu haysano imika lacag meel inoo taala. haddii imika sanadkan dabeeqaysiinu doorasho gelayno
way fiicantahay inuu 2 sanadood horena haysanay kana aynu haysano taas waxay yaraynaysaa lacagta aynu uga baahannahay international community inay contribute gareeyaan marka waa kayd inoo yaala si kalena looma isticmaali karo doorashada waynu gelaynaa wixii nool insha allah bidnaahi kariim arrinka ku saabsan deynta waa arrin soo noqnoqda had iyo jeer horta caalamka dowlad aan deyn qaadanin ma jirto waana loo baahan yahay justo saalan ku siinaya imika beriga dhaweytee gugii roobabkii badnaa ee daayay ee daadadka badan keenay 2 bridge burcaba khatar bay geliyeen waxaa loo baahday lacag $500,000 waa musiibo timan lagu talagelin miyaynu iska daynaa bridgeskeena ilaa miisaaniyadda dambe ay imanayso lacag loogu daraayo mise lacag baynu deynsanaa waxaa imanaya duruufo caynkaasoo kale ah sideedaba infrastructureka wax la yidhaahdo jidadka dekadaha airboorada korontada maxaa dhahda telecommunicationka lacagta badan u baahan miisaaniyad sanadeed lagama maalgeliyo you just can't imka degadaasu markay labadeeda faceba dhammaadaan waxay ku kacaysaa $442 million $442 million dee miisaaniyad sanadeed kama heli karo marka caalamkao dhan wadamadoo dhan deyn bay qaataan siday u dhisaan kaabayaashooda amba siday u cover gareeyaan miisaaniyaddooda marka horta deynta wax mushkilada ma laha iminka Soomaaliya deynteedu GDP-geeda waxay ka tahay 100% waa 100% and Djibouti was 62% of the GDP Ethiopia was 57% Kenya was 56% innaka qiyaastii waa between 1.5 and 2% deyntaas inta badan hadda aynu bixino amba inagu taagan waxay ka timi 2016-2017 aafooyin badan bayna soo maray xoolihii baa inaga baxay xoolihii dhoofi jiray baa la joojiyey doorashaynu gallay duruufo badan oo adag baa runtii nagu yimi in 2016 lacagta actualka ee aan ururinay waxay ka yareyd ta actualkeenu kharash garaynay 2% 2.something%. 2017 waxay ka yareyd 7.something%. labada marka la sugay waa about 10%. actualkan kharash garaynay waa kharashaad laynagu leeyahay marka horta deymuhu saasoo kale halkaasoo kale ay ka abuurmaan ayaga mashaariic aad mataqaana aad gashay oo lagaaga yeeshay kaa soo raacaan innaga today maanta deynteena inkastoo runtii weli aanay wada dhammaystirayn aan ku hel jiro waa ilaa waxa weeye ilaa 48 milyan wey ilaa 47 milyan 48 milyan marka loo eego GDP ahaan loo eego waxa waa very small waa 1.5 to 2%. haddii maanta layna ictiraafi lahaa oo awood aynu heli lahayn inaynu deyma qaadano waxaan ku tan lahayn inaynu 1 bilyan qaadano si aynu jeedkeena ugu dhisano cusbitaalyadeena ugu dhisano dekedaheena ugu dhisano haddii airportkeenu ka hadlaynay airportkeena yacni mala leedho keliya terminalkiisu ma wanaagsana it's horrible waxaynu u baahanay terminal cusub baynu u baahanay dadku markay kasoo degaan terminalkeena yacni qofku markiiba fikir buu ka qaadanayaa aan wanaagsaneyn waddankeena laakiin waxaas waxay ku kacayaan malaayiin 30 million 40 million 50 million 60 million bay ku kacayaan maogta marka waa deysanayn haddaynu heli kareen deynta mashkilad ma waxaad marka qaadin in deynta mashkilad laga dhigo it's not a problem problemku waxa weeye maxaad ku samaynaysaa mid qariiraysaa mise waxbaad gelinaysaa mise waa investment marka duulku dee labadaba way sameeyaan waana ku kabaan miisaaniyadooda current accountskooda investmentkana way geliyaan waana noo baahan runtii waxyaabaha inaga hortaagan horumarkana waxa weeye deyn la-aanta aanan access aynaan u lahayn international financial institutions waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu